xiis duulimaad cad baa lagu soo duulay gaariga ka daadegay gaariga ka daadegay hub iyo rasaas buu siday deegaanka laygu haystaa magaca wadaagsin ee aad maqasheen awooyaashay baa bixiyey burcada yarna awooyaashay baa bixiyey xaysimana awooyaashay baa bixiyey saddexduba iskama iman magacyadaniya taariikh bay ku yimaadeenoo ala sayidina mawlana maxamed wacala alihi wasaxbi wasallam ajmaciin halkan maanta saddex qodob oo ka fursan waaya ayaan u soo fadhiistay saddexdaa qodob waxay kala yihiin qodob dowladdan leeyahay qodobna beesha habar yuunis bari baan leeyahay qodobna waxaan leeyahay maamulka gobolka saddexdaa qodob marka aan kala qaado ama faahfaahiyo waxaan leeyahay deegaanka xiis duulimaad cad baa lagu soo duulay caddaynteedii iyo markhaatigeediina in allaaliya intii hadlaysay waxay ka hadlayeen ninkaa garnaqsaday maxaanku idhahdaayey maayarkii burce ee hore ee ina muraad oo habar jeclannimo ku garnaqsaday oo habar yoonis u garnaqsaday habar yoonis bari ilaa iyo maalintii eeshu dhacday iyo ilaa maalintii dhibaatadu dhacday wayna arkayeen se wayna maqlayeen haddaanay gacan bidixayna ku jirin oo aanay tolkood habar yoonis aanay raacsanayn waxbayna kala odhan lahay inanka kelmac ka yimi yufle ee xiis dusheed halka kilomitir ee xiis dusheeda ah igu haystaa xiis halka kilomitire ah ee xiis inanka igu haystaa tolkiisa iga qaban waaye maana kula socon markhaati baan taana u leeyahay muuse ismaaciil halkaa maalintii ugu horreysay xabaddu ka dhacday way isugu kaaya tageen wayna noogu yimaadeen deegaanka hadday jief caaqilkii ahayd iyo hadday mas-uuliyiintii kale ahayd ee xildhibaanna ahayd iyo hadday maxaanku idhaahdaayey wasiirra ahayd baa la isugu yimi xabad joojin baa naloo qabtay